الحمد لله ما أنت إله أيام الله أو فرصة يسيء إنان كسوق يبقى دور الشادي سومالي لان أقل كسر هذا الجيدين تيدر runtii qof kasta oo Soomaali ah meel kasta uu joogo gudiga dibad arintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hanaanka doorashada oo cadeynayso in uu dalku aaday doorasho insha Allah markay noo dhamaato doorashada aqalka sare oo aan rajeynayno inuu nagu soo dhamaato isbuucan gudihiisa laguma kala kacayo waxa hor loo sii galayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii galayaa markay naga dhamaato doorashada aqalka sare markay naga dhamaato waxa toos loo sii galayaa doorashada aqalka hoose insha Allah waxaan farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka gudiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada saad la socotiin gobollada waqooyi Somaliland waxay caan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah saa darteed indhaha ay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayay idinku hayaan marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo taariikhda gasho dib loo soo xasuusto oo qof kasta meel kasta uu joogo ka hadlo cadaaladda iyo hufnaanteeda siday ku dhacday odayaasha waxaan iyagana leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalkiina kartidiina waxaan idinka rabaa cadaalad dhammaanteen cadaalad aan deeqdo maantay Soomaali kaliya idinma eegaysa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa idin eegaya marka waxa idin leeyahay awada qofkii hooyanayo oo aqri hooyanayo lama yaqaano cadaalad la idinka rabaa qof kasta ha ku xisaabtamo in ay sugayso meel lagu xisaabtamayo dhammaanteena taas aan wada deeqdo waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dawlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dawlad goboleedyada 4 Jubbaland 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Somaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'adii ugu horeysay ee dastuuri ah dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo haddaan intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulillah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad oo iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadawga shabaabna uusan ka faa'iideysanin waxa tuhumada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalation ka sameeyo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda la isku hayo ma jirto shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markas u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheeni Igraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwa dhibku u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo gali doonaan waana la xisaabtamaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeena khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horena waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladaas ayaana wada deeqdo waxaa idin leeyahay
إن شاء الله doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhamaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira cakaaro imaanayaan insha Allah doorashadaas la isugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku calulfiyoobaynaa wadankana horu qorisku dhiigi horu ugu gudbaya insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino wabillahi tawfiiq aad ayaa u mahadsantiin waana noo furan tahay khudbadaha shir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.